ciidda iyo jumcadu hadday kulmaan masalo war xoogaa ayaa la weeyey xoogaa khilaafina uu ka jiro laakiin qowlka culimada islaamku ay u badan yihiin baynu soo qaadanaynaa iyagoo daliilka isu miisaamay qowlkaasi waxa weeyaan jumcadii inaanay dhacayn imaamkii kama dhacayso oo waa loo ogayaa dadkii siduu nebiguba u lahaa jumcadii waan tukanaynaa qofkii ciidda aan tukaninna kama dhacayso laakiin qofkii ciidda tukaday meel baadiyo durugsan tegaya kaasun weeye ka laga dhaafo qofka laakiin magaalada jooga iyo imaamkii iyo ummaddii magaalada jumcadii iyo ciiddii waa israacinayaan qowlka culimadu u badan yihin waa kaa marka la tanqiixiyo masalada la isku celceliyo wainaa mujamicuun maanta waxaa kulmay buu hi laba ciidood baa kulmayoo ciid iyo jumca kulmee maanta marka dee qofkii doonaa dadkii miyiga ka yimide ee ciidda tukada waa iska tegi karaa laakiin annagoo tukanaynaa ogaada saa uu nebigu aynu ku daysanayna waayo aqwaashu way iska badan yihiin aqwaasha qaarkood baa keli keli ah laakiin kaa jumhuurku waa caynka ah jumcadii iyo ciiddii labada waynu tukanaynaa